waxaa maanta soo gaaray diyaaradihii aan sugaynay oo aan ka sugaynay hay'adda FAO iyo hay'adda USAID oo ay maalgelisay runtiina muddo ayaan ku sugaynay inay naga buufiso ayaxa laano ayaxu waa aafo dhulka xaalufirisa tacabkii beeraha iyo wax soo saarkiiba wax badan u geystay alxamdulillah aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adda FAO iyo siday isugu xilqaantay iyo hay'adda USAID siday uga qayb qaadatay la dagaalanka ayaxa aad iyo aad baan ugu celinayaa aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin hay'adda FAO bulshooyinka Puntland waxaan sheegayaa inay inoo yimaadaan diyaaradihii in ay tagi doonaan gobolada inta badan ee ka jiro ayaxu inayan wax dhibaato wadin inay la dagaalamayaan ayaxa dadku inayan wax mushkilada iyo wax cusriya u arkin ayaa bulshooyinka Puntland loo sheegayaa waxaan kaloo ku boorinayaa isdawayaasha gobolada inay la shaqeeyaan diyaaradaha iyo hadba meesha marayaan iyo ayaxu meesha joogayo inay si dibliya iyo uga soo shaqeeyaan gudoomiyaasha gobolada sidoo kale iyo degmooyinku runtii waxaan rabnaa inaan qayb lixaad ka wada qaadano la dagaalanka ayaxa oo maanta halkay noo joogaan diyaaradihii aynu kula dagaalami lahayn ayaxa hadda kula hadlayna xilligan waxay noo joogaan meesha la yiraahdo garowe oo beeraha ay ku jira insha Allah taala shaqada horeysa ayaan qaban doonaa subaxdii mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda FAO iyo USAID oo aad iyo aad uga qayb qaadatay fanka